xiisada siyaasadeed ee u dhaxeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiye axmed madoobe ilaa hadda ma dhammaanin, laakiin weli ma isweydiisay daawade labada nin iyaa gardaran maxayna ku kala duwan yihiin dagaalkii farmaajo iyo axmed madoobe iyo midka xasan sheekh maxamuud iyo hadda axmed madoobe. iyadoo ay sababaha ay badnaan karaan, haddana waxaan soo qaadanaynaa qodobkii u weynaa ee farmaajo iyo madoobe isku hayeen, iyadoo midka u weynaa uu maanta isku hayaan xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe. haddii aan ku bilaabo shalay farmaajo iyo axmed madoobe, madaxweynihii hore jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ku haystay axmed madoobe doorasho dhextaa la qabo dowladda federaalka kaalinteedu ogolow ismaayo meel ay siyaasiyiintu u siman yihiin ka dhig halula tartamo doorashadana ha noqoto mid hufan oo korjoogto leh. axmed madoobe ma rabi midaasi waxa uu ku adkaystay inuu qabsado nooc doorasho oo hubo inuu si ku soo laaban doono 100%. inay kismaayo tagaan musharaxiinta aad ugu dhow nidaamkii farmaajo iyo xubnihii ka socday wasaaradda arrimaha gudaha, waxaa la xasuustaa inuu xamse cabdi barre uu xilligaasi ah gudoomiyaha doorashooyinka maamulka Jubbaland uuna ku doodi jiray dowladda federaalka xaq uma lahan inay soo fargeliso doorashada Jubbaland. marka la eego mowduuca maalinkaas la isku hayay waxa uu doorasho qabo laakiin ha loo sinaado. markii dhinaca laga eego madaxweyne farmaajo ayaa saxnaa, waana dastuuri in xaq doorasho loo sinaado goobtuna ay noqoto mid la tagi karo, hanaankuna uu dhaxtaal yahay dowladda federaalkana ay noqoto korjoogtayso. haddaba maanta maxay isku hayaan xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe? madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu diidan yahay in maamul goboleedyada ay doorasho ay galaan. waxa uu siiyey muddo kororsi sharci darro ah. markii uu muddo kororsiga koowaad u dhammaaday ayuu mar kale damcay inuu muddo kororsi kale uu siiyo isagoo leh iska fadhiya kuraasta, laakiin axmed madoobe ayaa ka hor yimid isagoo leh ma rabo muddo kororsi kale ee waxa aan qabanayo waa doorasho. xasan sheekh maxamuud waa uu diiday midaas, halkaas ayuu ka qarxay dagaalka la wada nin. ninka la doorasho ayaan qabanayaa iyo ninka la doorasho ma qaban kartid. waxaa dastuuriyan aqliyan ila saaxan ninka leh doorasho ayaan qabanayaa maadaama waqtigoodii uu dhammaaday. sababta dooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay micno weyn u samayn weyday dhinaca beesha caalamka iyo dhinaca dowladaha dariskaaba waa inuu xasan sheekh maxamuud sifa sharci darro ah wax ku raadinayo oo uu diidan yahay inuu doorasho ay dhacdo. haddii uu sida farmaajo uu dhihi lahaa axmed madoobe doorasho dhexda soo dhig waqtigeedana ku qabo, xasan sheekh maxamuud ayaa saxnaan lahaa. madaxweyne xasan sheekh dagaalkan xitaa saaxiibadiisa kuma taageersano, sababtoo ah waa loo joodaa inuu jiho qaldan uu u socdo. haddaba daawade, adigaad muuqaalka daawanaysid sida u aragtaa.